السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر عاوة إن شاء الله تعالى وحان إذين هيا قصة آذية آذو الله يا بدن وعجيبة أيان إذين هيا قصة مقعيدة وحا لا يرهض عن بشي كذن بوران هديمها قدن بوران هديمها قدن كدعي دونتين مويه بوران هديمها قدن كدعي دونتين مويه عربتنا وحا يرهضان من حفر حفرة لأخيه وقع فيها بوران هديمها قدن كدعي دونتين مويه sheekadaasaan caawa insha allahu tacaala rabaa inaan idiin soo gudbiyo waxay ka hadlaysaa sheekadu inta aynaan bilaabin marka hore waa qiso ama sheeko ka hadlaysa maskax furnaanta fariidnimada iyo fahmada haweenka muslimka ayay ka hadlaysaa qisadani waxa ay tilmaamaysaa haweenka muslimka iyo haweenka soomaalida oo ka mid ah iyaguna kuwa muslimka marka ay arrini la soo gudboonaato marka ay xaaja la soo gudboonaato in ay xalliyaan oo ay isku dayaan in ay arrintaa u sameeyaan muxuu ahaaye in ay ka gaadhaan in ay arrintaa xal u sameeyaan waxaa dhacay markaa sheekada haddii aan idiin bilaabo nin qaadi ahaa oo caan ahaa oo ayaa waxa uu deganaa magaalo qaadiga dadka uu u yahay qaadigu wuxuu ahaa dad xukunkiisa aad bay ugu kalsoonaayeen aad baa loogu kalsoonaa qaadi cadaaliyuu ahaa oo ilaahay cadaaladda ku sugay oo xukunkiisa qof kastaa ku qanco oo aan cidina hadal wixii uu xukumo iyo gartii uu qaado aanay cidina muran ka keenin maalin maalmaha ka mid a qaadigii waxa u soo galay laba gabdhood oo niqaaban ama indhashareer sita ayaa u soo galay qaadigii kolkii labadii gabdhood ay qaadigii u soo galeen isnabdaadin kadib kolkii la isbariidiyey ee la isnabdaadiyey kadib labadii gabdhood mid ayaa qaadigii waxay ku tiri qaadi marka aan soo galo qololka yaryar ee noocan oo kale ah sidan u cidhiidhiga ah naqaskaa igu dhaga neeftaa i qabata ma iska furi karaa niqaabka qaadigii intaanu hadalba waxaa halkan ka soo booday gabadhii kale ee la socotay oo ku tiri qaadigii qaadi waa beenteed way iska hadlaysaa yay kuwaalin gabadhan wejigeedu waa weji aad u qurux badan waxay rabtaa inay ku fidnayso oo ay ku tusto wejigeeda quruxda badan si ay ugu guulaysato kiiska naga dhexeeya saasay ku tiri allahu akbar qaadigii midna hadalkamuu gurina wuxuu yidhi labadiinna hadalka tiinee bilaabaysa gabadhii koowaad ayaa dabeeta hadalkii bilowday waxay tidhi qaadi gabadhan ila socotaa waa eddaday waa aabbahay walaashii oo aabbahay bay la dhalatay anigana waa eddaday rumaad hooyaday markii ay dhimatay iyadaa ay kafaalo qaadatay iyadaa ay soo korisay oo isoo kaalin gelisay iyadaa igu soo tabactay oo intaa isoo leekaysiisay markii aan noqday gashaanti tima tidcan oo gaadhi gedihii guurkana waxa iga soo doonay nin aanu ilmo adeernahay oo adeerkay dhalay eddaday way i siisay way ii dhistay way sukaayo aroostay way i gelbisay si fiican bay runtii hawshaydaa u gudatay eddaday waxay leedahay bay tiri waxay lahayd bay tiri inantaasi inan yar bay ahayd markii aniga iyo ninkaygu aanu muddo guri lahayn inantii yaraydee eddaday lahayd ee anigana aanu ilmaabtiga ahayn way soo kortay way soo kobocday gashaanti tima tidcan bay noqotay gedihii guurkay soo gaadhay dabeete eddaday ninkaygiibay u soo bandhigtay inuu guursado inanteeda ninkaygiina wuu ka aqbalay sidaasaa la isku waafaqay hase ahaatee eddaday ninkayga shuruud bay ku xidhay shuruuddaasoo ahayd inantan eddada u ahay ee aad qabto nin yahow waa in aad aniga maamulkeeda iyo go'aan qaadashadeeda igu soo wareejisaa oo aad ii qortaa warqatul wakaale in aan anigu go'aamadeeda oo dhan sidaan doono ka gaadhi karo ama sidaan doono aan ka yeeli karo ninkaygiina wuu ka aqbalay waa uu ka yeelay sidaasay eddaday iyo ninkaygii ay isku raaceen oo ay isku waafaqeen habeenkii arooskii ninkayga iyo inantii aanu ilmaabtiga ahayn eddaday baa ii timid dabeetana waxay igu tiri eddaday sow ma ogid in ninkaagii uu guursaday inantaydii oo arrimahaagii oo dhanna aniga laygu soo wareejiyey oo aan anigu ka mas-uul ahay oo aan ka qaadan karo go'aan wax kasta oo noloshaada ku saabsan haddaba waxaan kuu sheegayaabay tiri laga bilaabo hadda waad furan tahay eddaday baa sidaa igu leh ayay tiri inantii waayahay arrintu markay halkaa faraysa ee inantii la furay waxay tidhi gabadhii qaadigii baa dabeeto kor u kacay oo gacmaha kor u taagay oo qayliyey deedna waxaan ku idhi qaadi fadhiiso weli sheekada fari kama qodnee iska fadhiisa qaadi intaa kadib
waxaan furnaa bay tiri habeen iyo maalin baan furnaa kadibna waxa yimid ninkii qabay eeddaday oo safar ku maqnaa oo ahaa nin wanaagsan oo gabyaaya oo dadku aad u tixgeliyaan bulshadana sumcad fiican dhexdeeda ku leh ninkii baa yimid ninku aniga wuu garanayaa quruxdayda iyo qiimahayga wuu yaqaanaa laakiin dee gabadh nin labuu ii yaqaanaa waayahay waxaan u soo bandhigay ninkii ma ii guursanaysaa wuu iga aqbalay bay tiri inuu i guursado ninkii eeddaday qabay weeyaane shuruud baanse ku xidhay ah eeddaday aniga waa inaad igu soo wareejisaa eeddaday aniga waa inaad go'aan qaadashadeeda igu soo wareejisaa oo aan anigu sidii aan doono aan ka yeeli karaa eeddaday wuu iga aqbalay sidaasuu ninkii ila aqbalay dabeetana eeddaday baan u tegey waxaan ku uri eedoy soo ma ogid inuu aniga ninkaagii ii guursaday laga bilaabo maanta waad furan tahay sida ii furtay baan u furay ninba waa mare musma kula koray siday ii furtay ayaan aniguna iyadii u furay bay tiri arrintu markay halkaa marayso ee eeddaday aan furay ayaa waxa dhintay bay tiri ninkii aniga ii qabay ee eeddadayna qabi jiray ee ahaa gabyaaga ayaa dhintay dabeetana eeddaday ayaa waxay damacday in dhaxalkiisii ay ka qayb gasho markaasaan ku idhi oo halkeed ka soo gelaysaa beri buu ku qabi jiray iyo hadda miyuu ku qabay markuu dhintay aniguu i qabay anigaa afadiisii ahaa dhaxalka waxba kuma lihid sidaa ku biyacab kadibna markii aan asaydii dhigay ee 4 bilood iyo 10 habeen ee asaydu ay ii dhammaadeen ama isbasaasintu wixii la odhan jiray gabdhuhu had iyo jeer marka uu ninkoodu dhinto waxay galaan muddo la yidhaahdo muddada isbasaasinta markii muddadii ii dhammaatay bay tiri ayaa waxa ii yimid eeddaday iyo ninkii qabay inanteeda oo anigana berigii hore i qabi jiray iyo inantii aanu ilmaabtiga ahayn saddexdaasoo wada socdaa ii yimid eeddaday waxay rabtaa ninkan aniga i qabi jiray in uu na kala xukumo oo uu yacni ii sheego in ay eeddaday dhaxalka wax ku leedahay hase ahaatee markii meeshii lasoo fadhiistay ay saddexdoodii ii yimaadeen aniguna si fiican u soo dhoweeyey ninkii markuu i arkay ninkii i qabi jiray aniga ee imika laakiin aanay qabina inaabtiday qabaa markuu i arkay ee uu isha igu dhuftay ayaa isla markiiba wuxuu xasuustay wakhtigii wanaagsanaa iyo waayihii aanu isla soo marnay noloshii aanu soo wadaagnay aanu soo wada qaadannay ayuu xasuustay oo maankiisii uu dib u celiyey dabeetana waan dareemay bay tiri aniguna markaasaan waxaan u dadejiyey ma igu noqonaysaa imika ma i guursanaysaa markaasuu ihi haa markii horeba kuumaan furin xumaan shayddaanunbaa i qaadaye markii horeba xumaan aad lahayd kuuma furin haddana waan ku guursanayaa waan kugu noqonayaa diyaar baan ahay shuruud baan kugu xidhayaa bay tiri soo daa buu yidhi waxaan ku idhi aniga haddaad igu soo wareejinaysa aniga maamulka iyo go'aanka gaadhista inanta aanu ilmaabtiga nahay ee aad qabto waynu isguursanaynaa waan kugu wareejiyey buuri warqatul wakaalihiibuu ii qoray inantiina halkii baan ku furay bay tiri inantiina halkii baan ku furay dhaxalkiina sidii baan keligay ku qaatay markaasaa qaadigii wuxuu yidhi booraan hadimo ha qodin ku dhici doonteena mooye isaga oo canaan dusha uga tuuray islaantii ii eddada ahayd oo si xun u canaantay oo yidhi adiga ayaa waxaasoo dhan sameeyey inantaadiina adiga ayaa dhibaatadaa u geystay naftaadana adigaa dhibaatadaa u geystay inantaad eddada u tahayna waad dulmiday si weyn baad u dulmiday si xun baad ka yeeshay waxaan waraaba adhi ku samaynin baad ku samaysay inantii walaalkaa dhalay ee aad eddada u ahayd sidaasay ku soo baxday oo ay ku timid sheekada la magac baxday booraan hadimaha qodin ku dhici doonteena mooye islaantu waxay qoday bohol god bay qoday booraan bay qoday inantanay eddada u tahay bay doonaysay inay ku riddo laakiin iyadiina way ku dhacday inanteediina way ku ridday bal dhibaatada isu geysatay eeg waxaan maqli jiray baa layidhi digaaggu baa layidhi midida lagu qarayo unbay kula soo baxaan baa layidhi lugahooda siday gudaafadu faarfaarayaan islaantaasi iyadaa isdishay yay aalan nafteeda inay aalato mooyaane cid kale oo maanta ay aalanaysaa haba yaraatee ma jirto markaa sheekadani runtii waa sheeko lagu cibro qaato oo u baahan in aanu qofku cid kala xadhig iyo dhibaato iyo qusur u maleegin booraan hadimaha qodin haddaad qodanaha dheerayn ku dhici doonteena mooye sidaasaa lagu leeyay ha u diyaarinin qof ka mida dadka aad ehelka tihiin ama asxaabta tihiin ama ummadda kaleba dhibaato ama qool
ama maxaanku dhahday dabin aad u dhigayso waxaa laga yaabaa dabinkaasi inaad adigu gasho oo aad ku dhacdo sida islaantaasiba ugu dhacday oo dabeetana maahmaahdan laguu cuskado booraan hadimaha qodin ku dhici doonteena mooye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkaasay inoogu joogaysaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kulan dambe oo xiise leh